daawadayaasha qiimaha badan oo dunida meel kasta ka joogtaan waxaa ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka dunida. Barnaamijka caawa waxaan ku soo qaadan doonaa gabadha ugu cidiyaha dhaadheer adduunka oo baal dahaba ka gashay buugga dhacdooyinka adduunka ee loo yaqaano Guinness World Record. Ayanna Williams waa haweeney Maraykan ah oo haysata rikoorka adduunka ee cidiyaha ugu dhaadheer. Waxay korinaysay cidiyaheeda muddo 23 sano ah. Ayanna Williams oo ah gabar 54 sano jir aheyd sanadkii 2017 oo baal dahaba ka gashay buugga dhacdooyinka dunida ayaa waxay sheegtay inay iib u yihiin cidiyaheeda dhaadheer iyadoo markaasi rabta inay si ay u gudato xaaladaha nolol maalmeedka oo markaasi maalinlaha inta badan waxaa soo wajahday caqabad xagga nolosha ah. waxayna diyaar u tahay inay ku iibiso lacag gaaraysa 35,000 oo pound. Dunidan aan maanta ku noolnahay dumar badani waxay jecel yihiin inay cidiyaha la baxaan, in cidiyaha lagu dadaalo oo la qurxiyo. Dumarku aad bay ugu fiican yihiin, laakiin haweeneydan reer Maraykan Ayanna Williams oo ka soo jeeda gobolka Texas ayaa dhinaca kale wax ka aragtay. Waxay jabisay rikoor hore u yaalay waxayna heshay cidiyaha ugu dhaadheer adduunka. Ayanna Williams oo noqotay gabadha ugu cidiyaha dhaadheer adduunka maxaa ku qasbay in muddo 23 sano ah ay korin ku sameyso inay noqoto gabadha adduunka ugu cidiyaha dhaadheer. balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay haddii aad rabtid magac inaad dunidan ka heshid oo aad ku biirtid buugga dhacdooyinka dunida ee loo yaqaan Guinness World Record, waxay u baahan tahay inaad waqti qaadatid. ma jiraan wax ku yimid si fudud, balse wax kasta waxay soo qaateen waqti. daawadayaasha qiimaha badan meel kastoo aad dunida ka joogtaan waxaan iga codsanaynaa inaad channelka aad subscribe saarataan oo aad la socotaan barnaamijka dhacdooyinka dunida oo aan maalin kasta halkan aan ku soo tabino.